anigu hadda dadka la qaabilay ayaan kamid ahay muddo adigu 8 bilood gaaraysa ayaan joogaa halkaan ma garatay xageed ka timid markaan waxaan ka imid Soomaaliya waxaan ka imid horaantii Soomaaliya laakiin wadamo badan ee qurbaha kamid ah ayaan soo maray sida Afrika oo kale Uganda Nairobi sida Addis Ababa oo kale markii ugu dambeysay Addis Ababa ayaan ka soo ambabaxay waxaan soo maray wadada dhibka badan ee dheer ilaa Talyaani imaatay badda soo martay saxaraha soo martay Liibiya soo martay ha meeqa kaaga baxday wallahi lacag aad u badan ayaa iiga baxday oo gaaraysa 9,700 oo dollarka Mareykanka ah marka joogtaa waxbarasho ma heshay shaqo ma heshay waa sidee xaaladdu waxa weeyaan horta aniga shakhsi ahaantayda kulli inkastoo aan aaminsanahay inaanan waqtigan hadda intaan joogo aanan soo celi karinin ama soo celinin dhaqaalihii aniga wadada dheer iiga soo baxay ama biimihii aan soo geliyay naftayda iyo dhibaatadii haddana ma ila ahan inaan hal qof shakhsi ama lakigiisa nasiibkiisa aan ku qiyaaso oo kaleeto waxyaalaha halka ka jira ama dhibaatooyinka jira inaan ku qiyaaso ma rabo waxaad tiri naftayda halis baan soo geliyay waad ogeyd wax dhibaatad kala kulantay intaad badda ku soo jirtay ama saxaraha Liibiya soo maraysay dhibaato aad u weyn oo mid maskaxiyan ah iyo mid naf ahaan ah intaba waan kala kulmay waayo waxaan doon ku soo wada fuulnay 128 ruux 48 kamid ah ayaa ka soo badbaaday 80kii qof oo kaleetana way dhimatay 48 saacadood ayaa dadka meydkii iyo kuwii noolaa isdhex sabaynayeen dadka waxaan kamid ahaa 6 qof oo dadkaas ku soo badbaadisay ilaahay sabab uga dhigayay dadka yar soo badbaaday garanaysay dabaasha oo kaleeto annagoo oo u adeegsanaynay inaan xarko iyo qaybihii haray balaastigii doonta inaan ku soo dul xirno oo kaleeto 80ka qof ee dhintay intee Soomaali ahayd 4 qof oo ajnabi mooyaan inta kale Soomaali bay ahaayeen waxaan jeclahay Axmed Cali oo jooga wadanka Angola Axmed ku soo dhaw barnaamijka BBC-da adigu jidkaad ku soo jirtaa Yurub aad soo rabtaa أنا هذا واحد جوا وطن كأنغولا لكن إن شاء الله حرجنا هنا نيوروب هذا. شدك كود دكتورنا يوروب أتكو جاريسو. وأنا لسه بقدر أوصل نقطة نالك مار تاي عن سعرك قبضوا هذا جيك اللي دكتور ملا. سعرها ربطين أسكو سيديسو. عبد القادر الشيخ عمر أو شدك صار هذا ربطين تصامر أو سجال كوريو لمدة كوبية أو دولار أو dib fara badan soo arkay oo dadkii doonida la saarnaa 3 meelood 2 meel ay ku dhinteen indiisa soo shanta yihiin ayaa hadda Jarmalka qadka uga jira Cabdiqaadir Sheekh Umar bal hadaad la hadasho Axmed Cali uu ku maqlayaa marka u horeysa walaalkay Axmed Cali waan salaamaya Axmed oo hadii aan ku sii socdo fikirkayga fursadda kaaga faa'iideeyo waxay tahay walaal kulli aniga hadda anoo ku weydiinin lacagta aad ugu tala gashay kulli iyada ayaa isku sheegtay waa mid aad jeceshahay warkana waad haysaa in wadadaas ku marto waxa weeyaan walaalow runtii anagu sidaada oo kaleeto ayaan ku qarwi jiray in Yurub nolol ka bedelan nolosha Soomaaliya taala ama businesska iyo ganacsiga laga sameyn karo ama jiritaanka qofku magaca uu leeyahay markuu joogo iyo magaca markuu meel kale wadan kale laga aqoon uu tago in isbedel weyn iyo farqi ay u dhaxeeyaan taas waxaan aaminay markii aan darbiga soo taabtay waxaan adiga iyo cidii kale fursadda ka faa'iideysan kartaba in kaga faa'iideyn lahaa lacagta aad haysanayay ku nafsinin naftaaduna yeysan halis ha gelinin ولا الله واحد جونا أفريقيا صدق تياد هذا واحد جونا يوروب عام ملاينا يعني بعد كسر مرتين ده هرت همية الله يدوق هذا ملاينا يا مدة الله بعد أفريقيا ما دوقتها واتي شلا أكتر ما أرتك كتير يتمكن هذا واجد وعن في الأنغول هنا تي وضمان أفريقيا وقولنا قالها بدن حتى نسيت هاي تي وحواي ما تا لعك حلقة شبه نقطي ما تا واحد يسمى لها لعكتي شنطة بقولة دور نقولة ما تا واحد يقول لا بقولة دور ما قرت واجد مركا maskaxda laga haystay nimanka maartay lacagtanadii iyo dhaqaalahanagii hoos u dhigay khayraadkii Afrikana daldalanay in la qeybsano waaye waxay maartay urursanayaan walaal harta waxaan aaminsanahay aniga lacag adiga xornimo qashin ay noqotay baa tir horta lacag qashin noqotay waxay ila tahay way kugu badan tahay laakiin fikir kala maskaxdaada ka buuxayo oo inaad ka dhabayso aad jeceshahay runtii horta hadii qashin noqotay aad hayso waxaad u imaan intii waxaad cunto lagu xisaabinayo oo waxa lagu siinayo 30 maalmood maalin walba waxaad cunayso xisaab lagu siin doono oo fayl u galayso lacag aad maqlayso magacaaga lagu qaadanayo wadanka magacaaga ku qaadanayo laakiin adigu ma qaadanaysid lacagta laga qaato Yurub horta wax xisaabsan aad qaadan doontaa oo qalin ku xisaab waa hadii ay ku mashaariicda fursado oo in noqoto Ilaahay weynaa inuu dhibka iyo silaca ka soo badbaadiyo laakiin ma ahan mid la barbar dhigi karo maanta wadanka aad joogtay iyo mid la barbar dhigi kara ma ahan
marka waxaan ku dhihi lahaa in fursadda ka faa'iideyso